برسالة كقول كسنة أحمد عبد الجامع هي ماير كحجين كدقمة عرقابها كسمها ماير كصالح إسماعيل عباسي أي يجوا كدوا لي حضورنا يصوص مية المسؤولين معلومين اللي صورنا في الأكور كلي حالة عبارة كتير تقبل كا waxay maanta shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta maamulka gobolka Sanaag halkaas si wada jir ah kaga dhawaaqeen xaalad abaareed oo baan inay ka jirto guud ahaan gobolka Sanaag iyagoo ku baaqay in si degdeg ah gurmad xoolaha iyo dadkaba laga soo gaaro waxaana hadalladii ka mid ahaa haddaynu nahay reer Sanaag waxaynu baaq ka diraynaa inagoo kor u dhawaaqayna xaaladaha ka jira gobolka degmooyinka iyo tuulooyinka iyo miyiga inay ka jirto xaalad aad u adag oo biyo la'aaneed oo caws la'aaneed oo ay ku jiraan welisaan waliba dhinaca caafimaadka laftiisa dadkuna waa tawaalisan yahay waxaynu walaas ka saaraynaa waa biyaha waxaynu leenahay cid kasta oo xildhibo dowladda uu madaxweynaha u yahay mudane Axmed Maxamed Silaanyo golayaashiisa hay'adaha deeqda bixiya cid kasta oo danaynaysa qurba joogta cid kasta oo danaynaysa dhibaatada maanta taagan inay ka caawiso ummadeeda waxaan halkan baaqa uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxa waxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici gudida abaaraha hay'adaha samafalka hay'adaha deeqda bixiyaha baa samafalo deeqda bixiye hay'adaha yiraahdo waxaan bixinaa ama samafalka ganacsatada guud ee dalka iyo gaar ahaan kuwa reer Sanaagba waxaanu leenahay maanta waxaad gobolka Sanaag ka jirta abaar baahsan oo qaarkood ay ka horeysay galbeedka ay ka horeysay oo saameysay gobolka oo dhan abaartaasi meelaha ugu badan ee dhibaatada ka jirta biyo la'aanta cunno la'aan iyo nafaqa daro waxaanu ka codsanaynaa in ay insha Allah taala sida ugu dhaqsaa badan leh in mudnaanta labaad in anaga nala siiyo imka dawlad Sanaagnahay Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo News magaalada Ceerigaabo